18 bishan ayay ahayd markii mudanayaasha baarlamaanka Puntland ay xasaanada kala noqdeen golaha wasiirada Puntland. Wixii intaasi ka dambeeyay Puntland waxa ka dhashay jahwareer siyaasadeed oo saameyn ku yeeshay hanaanka ay socotay Puntland. Waxa soo baxaya beelo ka cabanaya awood qaybsiga baarlamaanka Puntland iyo siyaasiyiin caan ka ah Puntland oo isku khilaafsan furitaanka dastuurka Puntland. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole madaxweynihii hore ee Puntland iyo wasiirkii hore ee wasaaradda hawlaha guud iyo gaadiidka Puntland ayaa hadal isku weydaarsaday furitaankii xarunta wasaaradda maaliyadda Puntland. waxaan ka oranayaa dastuurka Puntland laftigiisa oo aniga saxiixaygu ku yaal aniga iyo Cabdirashiid iyo Allahu naxariistay Cabdi Xasan Jimcaale oo wasiirka dastuurka ah waxaasna waa wax loo baahan yahay dastuurka Puntland واقع ما أخرجها قفوا وين أفسمالو كقري قفوا أفسمالو قري كان بيهالك جوجا يا ما حاول رقمي ويدين دستور كبلان قبيلكم أدسنا ولو كل سنة دجال يقول الله مركب بلان لو كل سنة هلك المجال الجروب دجامال لو غيب شيء دجامال لو غيب شيء دجموين كي مركز جلال لو غيب شيء دجمال أنو قالد قول كانوا قال كوي توامبولها خلافك ولقي مركز شركة معمولة الله ونحرسته إسلام محمد بارك مركز لباتن قالوا أي سلوكتي هل بأنه قال يقوي والله قدر سراق مركز كوي شيء وعين دجان كذا كدجاني هل بأنه قال يقوي والله قدر إرجاوا دجان كذا بقولنا وحلا مذوق وحلا هاي إيوه عيد dhinaca kilka shanaad isku furan yihiin oo aan la kala saari karin waxa ilaahayeen 10 bay lahaayeen deegaankaas hoos u daadagaysa qabaayil bay ku qaybsadeen iyo deegaan hadba magac rabaan ha yiraahdeen odayaasha la kala isugu keenay oo la soo lugooyay wax dastuurka galay ma jiraan hadda ma fadhida waxba kuma lihid shaqadiina waa dhamaatay xildhibaanada doorateen baarlamaan baa la yiraahdaa iyaga xilka u saaran yahay madaxweyne doorteen madaxweyne wasiiru dhistay dib ay wansixiyeen قولي محوها يقصورك هدي وقتي كذا ما هذي دبا الله مقعبة برلمان كان سحيي إذا كشغلين واحد ما هتي إلى سوق لو ميزة ينهاري هل سنة يبربا ينهاري دور شو كل وان مان وان بوز اللي ما جاره مركز صار ليني ماني يبركي السوق تدك هورير إننا يا غير مذوب هدي وحيس يكين مغنيين دبوا لنا غلطين وحيس عشي نقابة والله غيب يا يحبال لي عشاي ومرتي حلقة كسح على وحينك غلط هذا الكلام أنا جيستوي عبد الرشيد ويرد الدستور كان صدق لأنه صاحبه كتيرة صور رئيس برلمانه يعني عبد حسن جمعال الله ونحرسته وحبه ولي يقول لك ما بدلين وابن كي كهري ولا أورنجري أحلية أو هرا وجري مركي دجمال الله سحيلية مركي جوا الله سحيلية لو ما فور الدستور لك ما نبدلين وحالقوا عن سحية وكنا كقرن هدي دجمال لما قعابه ودولته ما قعابه أما لما قعابه قبل وح برلمان كان لقيه برلمان كان سحية أقبله أنسحنت يبدستور حكي بدلني والله ما شيء بكريه تاوينا فهمته أرنت فهمت هاي وقت يا حبايبي لا يسقوا قلبين ولا يجيب واحد لقى ما بدلين دستور كان لقى ما بدل الدولة أرتيكل كان لحدا كان وحشية جيا لحدا كاقف لما كورلين كرو إلى عدد كلا تريو مركزات كلا تريو هذا دورش اللي قال يحسب على صبيرية هذا كلمة كإراهو أرنت الدستور دستور هو هالشيء بلشة مالين تبودل على بسي هي مالين دو أنت كده حي سنة dadkii ama furahay ama xirahay baan ku jira aayad quraan munazil ah oo lama taabtaana ma ahane in aad u tira badan waa la oran karaa konton in ka badan ba masaalixda wadanka loo furay masaalixda wadanka loo furay si kala duwan baa loogu furay haddana waana la furayaa baahidina ma dhamaan waana la sii wadi doonaa furitaankiisa hadbana dantu meeshay gasho ayaa dadka iskalihi kaga faa'iideysanaya masraxa ka wada nimaad soo dhaweyn ma arintaas laakiin gacanta aniga igu taal inta u taagay furitaankiisa
dadkuna waa ogyahay ilaahna waa ogyahay aniguna waa ogyahay haddii masaalixda ummaddu gasho waa la furaa qodobaa la furaa labaa la furaa hal mido aayadoo meesha ku yaalna kuma jiro taasna intaas ayaan ka leeyahay sidoo kale waxaa howlka jaamacadda bariga Afrika faraceeda Garowe ka soconaya shir lagula xisaabtamayo golahiisa wasiirada golihii hore ee wasiirada oo aysan qayb ka hayn hogaamiyaasha dawladda Puntland Sayre Ahmed Kalsan TV Garowe